aragnay dhiigi xageebu ma anigu xamda ma arag xamda ma leefay soo gashay xamda leefay soo gashay way ku foodhaqatay qolkii xidigta jarmalka saaka fiidiyoodii la soo duubeen waan ka tagay markii kunka la gaarsiiyay ciwaanka baan iska seexday because kunkayga dan igu jirtay mar allaana aniga amaal kun iyo kun baa layna kala gaarsiiyay waan iska seexan insha Allah ta'ala because kun iyo kun baan rabnay kun iyo kunna waa layna gaarsiiyay waan iska seexan qolalka furan aad soo aragtay maxaa soo arkay waxaa la yiri daaroodoo dhan waxay la safteen gabadhii maqsuud ahayd xamdi waa la gacan bidixaynayaa isaaq inta meesha halkaa iska dhigtaan gabadhii maqsuud ahayd reerkii daarood baa wata halkaa kilkishaabay gashteen waxay dhaheen dhaqaale iyo waxaan ku cod iyo wax walba inaan ku bixinayno wixii la soo gudboonaada qoryaa ilaahay yaqaana marka dawladii sheeko farfaray ahayde waxaan ku yiri falanqay ahayde heerka maxaa loo gaarsiinayaa oo loo leeyahay daarood meeshan uu joogaa dhalinyaro badan oo daarooda joogta meesha wixii dhacay waa laga hadli karaa waa la falanqayn karaa qof waa la sabood garayn karaa dee walaal macaan qof u xirxiran ma jiro meesha daarood iyo dirna iskuma dagaalin waxaan kaloo maqlayay gabadha idinku daaroodow gabdha leh idinku daaroodow waxaad rabteen faar dee awalba faar baad raadinayseen faartiina dee hesho dee naag isaaq oo dhulka taallaa duubateen dee naagta isaaq ee dhulka taalla walaalle gabar in adeertadii la dagaalaysay annaga libin aanu ku faanayno ama libin annaga noo taalla ma ahan fahmaysaa laba gabdhood oo ilma adeera baa isdagaalayay maxaan annagu marka maqsuud aan maaragtay kaga faanaynaa gabadha yarta iyo labada gabdhood oo isdagaalay maxaan kaga faanaynaa oo nagaga dhex jira oo aan ka dhex raadin karnaa waa waxba walaalle ma fahantay wixii dhacana waa la falanqeeyaa qol walbaa lagu falanqeeyaa markii annaga nala falanqaynayo ma dhahano maxaa naloo falanqaynayaayey maxaa nalooga hadlayaayey hoogayo baayey hebel baa tuubaday raacayey hebel watooy dee waxaa ma dhahano qof walba walaalle markiisa wixii dhaca waa la falanqaynayaa haddii daarood isdagaalaan waa la falanqaynayaa haddii meeg la qaatay waa la falanqaynayaa dee taasi normaal bay ka tahay tiin farfar baa u nool ma fahantay wixii dhacayna waa laga hadli karayaa ma garanaysaa laakiin ilaa heerka in la xanaaqo oo daarood la jaayifeeyo oo daarood la caayo gabdhaha kaleba gabdho badan oo daaroodaasi boodgaraynayay haddaa maqsuud la soo boodgareeyay dee waa caadi daaroodii tiradii bay ka bateen qofkay doonaan bay saboodgarayn karaan qofkay doonaan bay taageeri karaan taasi xurnimo weeye maxaa marka khaldan qolka falowgareeya oo shaashada qaraaca maxaa ka galay ay loo taageeri karayaa